الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وتاريخ وكوت هاي وحربنا هنا كهذا صوب بندقنا بسطولة هان نبانك كوه بيسنا ولا بدي بنعكل التاجن هي سراكيشي ساق قبطي قيبتي ساق قبطي بوليسكا أيام ربنا هنا كهذا مهد عبدي محمد أو نكان قعنتي ذبيح يا wuxuu ku eedeysan yahay bastooladaas ayuu shacabka Soomaaliyeed ku baaranayay asagoo baarashadii wada ayaa ciidanka booliiska saldhiga waa bari ayaa ka hawl galay way soo qabteen markii ay soo qabteen oo halkan la keenay waraysi lala yeeshay waraysigii wixii uu ka yiri ayaa waxaan rabaa inaan idin maqashiyo haye mahadaye bastoolada وأرتب بصورة من صاحبك أسكلها يسودي يا يران صاحبنا أسكلها يران صاحبتينا أسكلها هيه ويسودي هيه ومعنا هنكسوقة تاني هيه ديكار كنا أسكلها هيه صورة ديكار كنا أسكلها وكسوقاتي مادام كسوقاتي أنا ومعنا الصورة دوتو فإذن كعافض دقين صدقنا نبدأ وابري ayaa ku yimid yimid isku dhacsanaaday wiil xaafada degan oo u socday wiilashii markaa waayeen saldhiga ciidan kamid ah iga hor imaadeen bastoolada sidii laga soo qaaday saldhigan leeyahay wiilka aad sheegtay wiilka uu sheegay waa ninka kaarka iska leh kaarkaas ayuu iska leeyahay kaarkaas uu iska leeyahay waxa lagu magacaabaa Farxaan Xasan Maxamed Cusmaan kaarkaas ayuu iska leeyahay wuxuu sheegay oo uu cadeeyay mahad in bastooladan uu leeyahay Farxaan Xasan Axmed Cusmaan oo dabla ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ninkaas askariga waxaan uga soo qaatay buu yiri inuu ku soo shaqeeyo markaan ku soo shaqeeyana wixii aan ka soo shaqeeyo aan asaga u geeyo markaasna uu asagu qaybiyo sidaas ayaan ku hawlgali jiray buu yiri sidaas ma tahay sidaas okay ninkan asagana bastooladan buu leeyahay ID kaarkaasna waa uu leeyahay waxa lagu soo qabtay asagana asagoo wax baaranaya oo baarasho sameynaya ninkan waxa la yiraahdaa Maxamuud Xasan Iidow وأسقنا وأسكري ويه wuxuu ku eedeysan yahay asaguna baarasho dadkii uu baartay iyo wixii uu ka baartay iyo wixii oo dhanna waxa idin haya saldhiga xamar jajab taliyaha saldhiga xamar jajab intaas oo dhan waxa la rabaa in baaris lagu sameeyo lana horgeeyo sharciga anaga dhan ugu wada filan midkeena shacabka iyo midkeena askariga iyo midkeen wax kasta oo aan nahay ummadda Soomaaliyeed sharciga ka weyn sharcigaana ku filan ciidanka booliisku 24 saacad kasto la hurdayo midka hurdaya iyo midka soo jeedaba ayaga isha ku haya ayaga u shaqeynaya ayaga la wakiishay ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida uu taliyaha ciidanka booliisku na amray ayaa loo shaqeynaya asagana amarka dhiibay habeen iyo maalin in aan la daalin oo la shaqeeyo maxkamadda ayaa la horgeyn doonaa hadii Ilaahay idmo shalay sidoo kale hodan waxa ay horgeysay oo ay qabatay Xasan Yaasiin Cabdi iyo Mahdi Tahliil Maxamuud oo afduubay wiil 4 jir ah si ay diidaan ayagana ugu tagi doonaa hadii Ilaahay idmo waxay kaloo ay hubaysnaayeen hubay ku afduubeen wiilka yarkaana ciidanka booliisku uu soo helay meesha ay maaragtay ku qariyeen meeshii ay geeyeen ayagiina waa la soo qabtay waxay kaloo la geeyay maxamed Sadiq Cabdi Cali oo bastoolad ku hubaysan oo mobile fara badan baartay iyo dadkii uu ka baartay waxaba maxkamadda shalay la isku geeyay xabsiga dhaxal loo dhaadhiciyay ciidanka booliisku 24 saac wuxuu u taagan yahay shacabka iyo dawladda iyo sharciga inuu fuliyo aad baa u mahadsantihiin kiisas kale oo yaala saldhigyada waan ku warwareegi doonaa ciddii isku dayda ma uma wadano hubka in looba si ciidanka in ay wax ku baartaan inay dad siiyaan inay dad u dhiibaan midna looguma tala gelin
ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inaan iskaashi buuxa ka samayno oo aan la samayno oo aan iskaashano iskana qabanno waxyaabaha dhib